Tutsi ama Aba Tutsi ninba sida uu yaqaan waa qowmiyad ka mid ah qowmiyadaha dega bariga Afrika, gaar ahaan wadamada ay ka mid yihiin Rwanda, Burundi iyo Democratic Republic of Kongo. Tutsi tira ahaan waxa lagu qiyaasaa 2 milyan iyo bar. Luqadda ay ku hadlaana waa luqadda Kinyarwanda iyo Kirundi. Qowmiyadan asal ahaan waxa la sheegaa inay ka soo jeedaan geeska Afrika, gaar ahaan dalalka Soomaaliya iyo Djibouti, sida ay sheegeen qoraallo taariikhi ah oo yaala madxafka Brussels. Haddaba waxa kale oo jirta in dadka Tuutsiga in badan oo kamid ah ay aaminsan yihiin inay ka soo jeedaan geeska Afrika. Dhanka kale markaan ka eegno bulshada Soomaalida, cayaar dhaqameedyadooda xilliyada arooska oo kale, dumarkayna waxay yiraahdaan Aba Tutsiga abbaan u lahayn, ardayda wacanna abbaan u lahayn. Tanna waxay noo iftiiminaysaa inuu jiro xiriir fac weyn oo ka dhaxeeya Tuutsiga iyo Soomaalida. Waxaa laga yaabaa dad badan oo adigana hadda muuqaalkan daawanaya ka mid ah inay rumaysan waayaan, laakiin meel dhow aan ka tuso tusaale yarna aan ku siiyo. Soomaalida waxa ku jira qowmiyad la yiraahdo Bantu. Isweydiintu waxay tahay Bantu ma Soomaali Baa? Jawaabtu waa maya. Hayaabin aan wax yar kaaga sheego. Bantu waa qowmiyad asalkeedii degta bariga Afrika, gaar ahaan Niger, Kongo, Kinshasa iyo DR Congo. Laakiin maanta dadka aan Soomaali Bantuga u naqaano waa Soomaali dad ahaan iyo diin ahaanba. Isla marxaladan oo kale waxa ku sugan Tuutsiga oo muuqaal ahaan aad inoogu eg madowga, dhirirka iyo duuduubnidaba. Aniga laftigee ka abookar ahaan oo barnaamijkan idin soo tabinaya hadda ka hor sanadka marka uu ahaa 2008 mar aan dalka Kenya safar waxbarasho ku joogay, ayaan maalin dalxiis u aadnay ani iyo koox kale magaalo lagu magacaabo Malindi waa magaalo ay maraan wabiga Galana iyo badweynta India, waana magaalo xeebeed waxa ayna xagga waqooyi 120 kiiloomitir kaga beegan tahay magaalada Mombasa. Maalinka mar aan ka soo laabanay safarkeeni dalxiiska ahaa ayaa gaariga nooga halaabay wadada, kadibna nin aan Soomaali mooday kuna dhaaran karay markaa inuu Soomaali ahaa waaba haddii lagu dhaariye noo istaajiyay gaari xamuul ah, kadibna isagoo ku hadlaya luqadda Kiswahiliga nagu yiri soo fuula gaariga, dad walaalahay ayaa tihiin, wadadana idinkaga ma tagi kare. Kadib baan kula kaftamay naxariis badnida ma koonfurta Soomaaliya ayaad ka soo jeedaa. Kadib ayuu igu yiri asaga oo dhoola cadeynaya maya ee xageed dhalashadaada u marin habaabinaysa adiga oo ah nin Tuutsi ah. Kadib baan anna kula kaftamay naga daa ciyaarta. Isaga oo wajigiisa cara ka muuqata ayuu igu yiri hadda warka ii kala saar, soo Tuutsi maahid? Maya baan ku yiri Soomaali baan ahay. Kadib baa isaga oo guryamaya inta gaariga marshada gashtay dhaqaajiyay, anigana meesheeda ayuu yaab iyo amakaaga igula dhacay. Dadka wax qora waxa ay sheegaan Tuutsiga inay yihiin dad Soomaali ahaa kana mid ahaa boqortooyadii Ajuuraan ee ka talin jirtay inta badan dhulka Soomaalida degta. Waxayna sheegaan boqortooyada mar ay dagaal la gashay Oromada iyo Boortaqiiska qarnigii 15aad marka ay Oromada waday isballaarin dhuleed. Dagaalka inay ku firxadeen dadka Tuutsiga ah kuna galeen dalalka jaarka ah, gaar ahaan Kenya, Rwanda, Burundi, DR Congo iyo dalal kaleba. Haddaba daawade aan ku weydiiyo su'aasha maanta, maxaa fakara oo aad ka haysataa qowmiyadan Tuutsiga ah? Ma Soomaali Baa mise wali waxaan wadnaa faduusheennii aan geeska Afrika la fadhinay? Bal adiga aan ku daaya jawaabta commentigana noogu reeb. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. Haddii aad maanta na soo booqatay oo aad nagu cusub tahay, waxaan ku leenahay sharaf bay inoo tahay booqashadaada. Soo dhawow, channelkana subscribe saaro, gambaleelkana taabo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada kan xiga ee aan soo gelin doono. Haddii aad horay u saartayna waan kaaga mahadcelinaynaa dhiirigelintaada. Mahadsanideen.